caawa runtii xadmi bay noo tahay wasaarad ahaan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda runtii barnaamijyada ka mida oo la yidhaahdo barnaamijka kobcinta adeegsiga tiknoolajiyadda oo runtii lagu kobciyo aqoonta tiknoolajiyadda maanta intan inay qaybo ka mida ka qaateen waxay noo tahay farxad weyn iyo runtii hadafyadii aan lahayn mid ka mida oon gaadhay hadafyadaas oo la isku dardaro waxaan rajaynaynaa Somaliland inay noqoto dalalka hogaamiya ee tiknoolajiyadda barnaamijkan si guud waxaa wada oo hirgelisay xarunta hal-abuurka Somaliland Innovation Zone oo runtii si toos ah hoos tagta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda waxa hadafyo ka mid ah hadafyada markaa aynu doonayno aqoonta tiknoolajiyadda inaynu kor u qaadno ee waddankeena farxad weyn bay noo tahay caawa 300 ku dhawaad inay halkan noo fadhiyaan oo iskugu jira markaa qaybihii bulshada ugu muhiimsanaa hadday noqoto wasaaradihii hay'adaha madaxa hay'adaha dawladda ciidamada qaybahooda kala duwan ardayda jaamacadaha dadka iyagoo aan aqoonta lahayn laakiin digitalku uu saaciday oo noqday xirfado fudud ay ku shaqaystaan dhammaantood inahaasay bulshadani ka kooban tahay dhammaantiina waxaan idin leeyahay hambalyo intii aad nala soo joogteen ee xirfadda ay runtii aad faa'iideysateen runtii barnaamijkan markaynu doonaynay inaanu kobcino aqoonta tiknoolajiyadda laamaha dawladda iyo wasaaradaha iyaga inta badan waxaanu xoog u saaranay habka xogta la isku weydaarsado oo ah runtii qaybaha ugu weyn ee dawladdu markaa isticmaasho marka waxaa khaasatan loo yaqaano network administrations soo kale ilaalinta xogta ka mid ahayd si loo ilaaliyo xogtii maadaama digital guurtay oo maanta xog kastoo la hayay oo xogtii dawladdu ay digital guurtay waxaa lagama maarmaan noqotay in xogtii markaa la dhiso dadka markaa shaqaalaha u ah markaa ama ehelka u ah daatadan ay gacanta ku hayaan kasi gaar ah waxa loogu tababaray waxaan aynu dhahnaa data protection ama cyber security-ga kuwaas oo aynu isleenahay xogta iyo ilaaladeeda qayb muhiim ah bay ka qaadan doonaan sidoo kale waxa barnaamijkan ka mid ah oo runtii dawladana lacag badan kaga baxaysay oo imika aaladaha aadka aan u isticmaalaha isla ilaalada uun ka qayb qaato oo kamaradahan inoo ilaaliya amniga oo runtii dawladda lacag badan kaga bixi jirtay si ay u soo hayr gareystaan dibadda kalsooni weyn maanta waxa noo wasaaradda isgaarsiinta ahaan inuu wasaaradihii intooda ugu badan ku ognahay dad u xalinaya markaa kamaradaha ilaalada oo xogtoodiina gacanta ugu haya wixii ay uga baahdaan kharash badan ugu bixi jireen runtii u haya waxa dhacaysay mararka qaar in xogaha maadaama third party ay ka shaqeynayeen inay dibadda xogtii qaar u baxdo maanta laakiin ka wasaarad ahaan si weyn baan uga shaqeynay waxaan ku guuleysan doonaa oo isleenahay halka ugu sareysa aad gaadhiin heer ay halaamaha iyo wasaaradaha iyo ciidamaduba iyagu xogahooga kamaradaha ammaankana ay gacanta ku haystaan oo runtii farxad weyn anaka noo ah si gaar ah waxaan halkan ka tagi kareynin oo rabaa inaan mishan gareeyo ardaydii jaamacadaha ka baxday ardaydeenu inta badan jaamacadaha waxay dhameeyaan iyagoo runtii aan xirfad ay ku galaan oo ku buuxiyaan suuqa Somaliland ka banaan aan lahayn bay inta badan inooga soo baxaan jaamacadaha laakiin xaruntani maadaama innovation zone tahay waxaan ku guuleysanay inaanu dhalinyaradii ku hagno markay jaamacadda ka soo baxaan marba gaabka ama suuqa ka banaan Somaliland oo inta badan dad ay inooga shaqeyn jireen ajnabi imika dhawaan waxaan rajaynaynaa inay dhalinyarada Somaliland kaafiyi doonaan suuqa tiknoolajiyadda ee runtii ka banaan waana hadafyada wasaaradda u yaala iyadoo line ministerka u tahay in la helo dhalinyaro la jaan qaada adduunka inahaas iyo ina badan caawa farxad bay noo tahay inaynu gaabka buuxinay walow aanan oranaynin halkii la rabay baan gaadhnay laakiin haddana wax baan ka tarnay markii hore maadaama from zero ahaa laakiin wax badan baan ka tarnay oo runtii ku amaanan yihiin madaxda wasaaradda nagu gaadh garaysaa marka dhammaan xafladan maanta waan idinku soo dhaweynayaa farxad weyn bay noo tahay aqoonta aad barateen inay idin hay'adihii dawladda iyo runtii suuqii Somaliland intiina halkan fadhida inaad sanadkan ka qayb qaadataan waa farxad aad noogu weyn oo runtii hadafyada aan u soconaa si gaar ah waxaan u salaamayaa ciidamada kala duwan ee halkan biladaha xidhan oo runtii markay xarunta nala joogaan aan amaan aad u fara badan dareeno runtii kalaasada ciidamadu markay nala joogaan waxaan dareenaa amaan aad u weyn yani kulli ilaahay u baa suga laakiin waa kuwa aynu ku nasanay waa kuwa aynu xaflada quruxda badan leh ku joogno iyaga aqoontooda mar walba inaan siyaadinana runtii aniga ka innovation ahaan aad bay iga go'an tahay
dhammaantoodna markaan mar labaad bay mar labaad mar saddexaad baan salaamaya waxaanan halkan ilaabi karin barnaamijkan kobcinta adeegsi teknolojiyadu waa barnaamij aad u ballaaran kulay waxaan naga hirgelisay oo gacan naga siisay Taiwan ICDF waxaan aad u hambalyeynaya iyaga thank you for Taiwan ICDF representative and all members to support this projective program which is take part the development of Somaliland so I'm without of Taiwan ICDF team might not be implemented well in this program. So I'm going to be saying thank you, whatever input that you can in Somaliland. So I'm going to be saying Taiwan and Somaliland is a very neighborhood for in terms of policies. So I wanted to be saying welcome again in Somaliland and we have a good collaboration and we will develop in our development be in higher than in here. So we are going to be saying thank you any input that you have in this program. Thank you all of you.